Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals. Waa koorsada Pre-Intermediate English course. Waana buuggeena 4000 Essential English Words Book 1. Casharkuna maanta waa casharka 13aad. Wuxuuna ku bilowday page-ka 44aad. Saa idin sheego casharadan markaan bilaabayno waxa ka bilowday kii 11aad kuwa kale kulli YouTube channel-kana aad ka heli kartaa. Marka casharkeena kelimada koowaad ee maanta waxa kamid ah allow. Allow waa ogolaasho. Allow means allow something to happen means to let it happen. Wax marka u ogolaato inuu dhaco. Having a ticket, inaad ticket wadato will allow you wuxuu ku ogolaanayaa to enter the show inaad gasho. Showga waa bandhig sida riwaayadaha iyo waxaas. Having a ticket, inaad ticket wadato, ticketka waxa ama gaariga lagu raaco, diyaarada lagu raaco ama xataa meel lagu galo. Having a ticket, inaad ticket wadato will allow you wuxuu ku ogolaanayaa to enter the show inaad gasho. Erayga kale marayna waxa announce waa ku dhawaaqid ama ogeysiin. To announce something is to make it known. Waa in la ogaado ku dhawaaqid way. Na wax ku dhawaaqdo ama la ogaado. He announced wuxuu ku dhawaaqay to everyone ama uu ogeysiin. Announce waa ogeysiin ama ku dhawaaqid. Announce waxa weyn ogeysiin ama ku dhawaaqid. He announced to everyone wuxuu cid kasta ogeysiiyay his new idea fikradiisa cusub for the company ee shirkadda. Marka erayga saas u baro. Announce waxa la ogeysiin ama ku dhawaaqada ogeysiiska waxa la announcement waa la. To announce something is to make it known. Waa in la ogaado. He announced to everyone wuxuu ogeysiiyay cid kasta his new idea fikradiisa cusub for the company ee shirkadda. Erayga waxa ka soo beside erayga waa preposition waa meelay dhinaciisa way. Dhinac. When someone or something is beside you, they are next to you. Ku xiga way, kugu xiga ama dhinac ka xiga. The two brothers stood beside each other. Was dhinac istaageen. The two brothers stood beside each other. Was dhinac istaageen ama was garab istaageen. Marka erayga beside, come and sit beside me. Kaal dhinacayga fadhiiso ama agteeda fadhiiso. The two brothers stood beside each other. Was garab istaageen. Yani way is caawiyeen bay hadkaleed. Stood beside was caawin oo kale hadda. Stand bay erayga timid. Erayga kale waxa challenge waxaa la wax shay adag oo qofka sameeyo dhaho waxaa la challenge as erga wax caqabad camal weey ama wax adag waa wax adag in la sameeyo waxaa la challenge hadda xujada camal waa loo isticmaalaa challenge ay furi karo kala aragtay marka ficilka challenge waa noonka challenge waa ficil saas ku noqotaa a challenge is something difficult waa shay adag baa to complete and dhamaystirto adag wax adag oo caqabad weey. Sorry, it was a challenge. Caqabad bay ahayd to climb in la fuulo climb bad akhris eriga to the top of the mountain buurta meesha u sareysa in la fuulo. It was a challenge. Caqabad bay ahayd to climb in la fuulo to the top of the mountain buurta meesha da sare. Eriga kana barayna waxa claim waa wax inaad sheegato ama ku andacoto sheegasho waxa la claim. He claimed to be a doctor inuu dhaqtar yahay. Claim waa wax inaad sheegato oo badana adoo run ka dhigay. To claim is to say that something is true. Waxa inuu run yahay kale. Tusaale aragtay. He claimed wuxuu sheegtay to know inuu og yahay why the country's law sababta sharciyada wadanku waa weak ay daciif u yihiin. He claimed wuxuu sheegtay to know inuu garanayo why the country's law sababta sharciyada wadanka. Laws waa sharciyo, country waa wadan. Why the country's law sababta sharciyada wadanku waa weak ay u yihiin kuwa daciif. Weak waxa la wixii tabar yar. Erayga kale barayna waxa condition waa xaalad condition of someone or something is the state that they are in waa xaaladda ku sugan. Salaam the patient's condition bukaanka xaaladiisa was very good way fiican. Marka xaaladda ku sugan tahay la condition. How is your condition? Say waa xaaladda. The condition of someone or something is the state that they are in xaaladda ku sugan. The patient's condition xaaladda bukaanka was very good aad iyo aad u fiicnay. Erayga kale maanta waxa contribute waa ka qayb qaadasho wax inuu guuleysto mashruuc inuu guuleysto contribute asalka waxa la marka xogaa lacag bixiso ama waqti bixiso ama ka qayb qaadasho waa contribution waxa la sadaqada iyo waxyaabo la bixiyo waxa la contribution adigu waa wax aad bixiso si barnaamij u guuleysto. To contribute to something means to do something to make it successful inuu wixii guuleysto. Ojeeda we decided waxaan go'aansanay to contribute money inaan lacag ugu deeqno to the new hospital cusub. Marka erayga contribute
waxaa lahaa inaad wax bixiso wey wax bixin wey ama ugu deeqdo waqti ama lacag wixii lamid waxaa la contribute ama ka qayb qaadato waxaas inuu guulaysto. We decided to contribute money. waxaan go'aansanay inaan lacag mataqaanaa aan ugu deeqno ama uga qayb qaadano to the new hospital isbitaalka cusbaa. ereyga kale waxaa difference waxaa la farqiga u dhaxeeya laba shay. difference waa farqiga u dhaxeeya. A difference so that something is not like other things oo waxay ku kala duwan yihiin. The biggest difference farqiga u weyn between the birds shimbiraha is the color of their feathers. waa madabka baalashooda. feathers maxaa la baalasha shimbirtu waxay ka samaysanta wax loo yaqaano feathers ayaa waxaa la baalal. The biggest difference farqiga u weyn between the birds shimbiraha is the color waa midabka of their feathers ee baalashooda. feathers waa baalash shimbirka waxa korka uga doonaan waxaa la feathers ama baala noqdo ama garbeeda noqdo feathers. waayahay ereyga kale waxaa weyn divide waa qaybin waxba kala qaybin. To divide something is to make it into smaller parts. waa inaan wax yar usii kala qaybiso wey. make it into smaller parts markaas sii kala qaybiso. We divided waxaan qaybinay the pizza waxaa la baha la cuno oo bur iyo ka samay waa cunto la cuno bur iyo ka samaysan hilib noocaas. ereyga kale waxaa expert waa khabiir qof wax aad u yaqaano wey. An expert is someone who is very good waa qof aad ugu wanaagsan at doing something wax marka expert waxaa la waa khabiir qof aad wax u yaqaano ugu fiican. The wizard waa nooc kamid ah waxyaabahan yararka ee dhulka ku socda. waxaa la wizard geelka cawaadis iyo qorrato iyo qalajisi waxaasay dhahaan anaga magacooda saxda ma wizard waa bahal qorrato ama qalajisa ama qalajisa dadka qorrato dhahaan dadka geelka cawaadis bay dhahaan waa noolo yaroo dhulka badanaa ku socda wey. oo the wizard was an expert waxay khabiir ku ahayd at magic sixirka marka casharkeennana halkaas maanta noo wegyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. fadlan casharada akhriya oo dhagaysta.